adduunka dhan waxa uu isweydiinayaa meesha ay martay hay'adda sirdoonka Yuhuudda ee loo yaqaanay Mossad. Hay'adda sirdoonka Yuhuuddu waxay ahayd mid ka mid ah sirdoonnada ugu awoodda badan leh caalamka. Waxay ahayd mid dhiga dheer, mid indho dheer oo aad wax u raadisa, taas oo ay ku faani jireen Yuhuuddu. Laakiin waxa la garan waayay meesha ay martay hay'adda sirdoonka Yuhuudda oo ay u fahmi weyday weerarka qorshaysan ee lagu qaaday 7 Oktoobar dhulka ay Yuhuuddu xoogga ku haysato. weerarka dhacay ayaa ahaa mid la qorsheeyay oo sidii loogu talagalay loo fuliyay. Waxa uu ahaa mid laga shaqeeyay oo siyaabo kala duwan looga shaqeeyay, kaasi oo lagu guuleystay howlgalkaas oo ahaa mid ballaaran. Howlgalku waxa uu ahaa mid ka dhacayay badda, bariga iyo cirka, kaas oo ku noqday caalamka dhan afariir oo hal mar lagu baraarugay Israa'iil oo dhulka lala jaray. Inta badan hay'adda sirdoonka Mossad ee Yuhuuddu waxay ahayd mid luga fara badan ku leh marinka Gaza iyo sidoo kale gebi ahaanba dalalka Carbeed iyo caalamka, taas oo ay suurtagal u ahayd inay fahanto amba ay ogaato qorshe amba weeraro lagu soo qaadayo Yuhuudda. Balse haatan qorshaha dagaal ee lala galay Yuhuudda waxay ahayd mid haba yaraatee aysan waxba ka ogeyn hay'addii Mossad ee Yuhuuddu. Waxa kale oo adduun weynuhu aad isku weydiinaya nidaamka ay Yuhuuddu aadka ugu faanto ee loo yaqaano Iron Dome. aaladan oo ah mid aad iyo aad u horumarsan, Yuhuudduna ay ku faanta caalamkan ay ka iibiso, ayaa ahaa mid ka hortagay gantaalada, kaas oo dhulka soo dhigaya inay wadamada reer galbeedka taageeraan magaalooyinka amba Israa'iil. Balse kasoo bilaabo meesha uu ka baxay 7 Oktoobar markii la aasaasay Yuhuudda, 20 daqiiqo tan iyo xilligaa laga soo bilaabay in ka badan Ingiriiska iyo Mareykanku ay taageero buuxda ka Yuhuudda lagu deegaamiyey ee ku tiirsan marinka Gaza. Iyagu samaysteen Yuhuud fara badan oo Yuhuuddu ay qabsatay oo ay hore u haysatay oo ay ku deegaamisay Yuhuud kale ayaa haatan dib loola wareegay magaalooyin looga sameeyo beeraha, tuulooyin iyo goobo kala duwan. Dowlad aan islaam ahayn waxayna dagaalada iyo isku horimaadyada oo aan muslim ahayn ay ka talisa baran ilaa 8 goobood oo si rasmi ah loogu dagaalamayo oo dowladna looga ciidamada Yuhuudda iyo sidoo kale jihaadiinta reer Falastiin. Xamaas waxay gaadhay guul cajiib ah oo islaamka oo dhan uu aad ugu faanay. Waxaa si dhow arrinka ula socda waddanka Iiraan oo ah isagu dalka baritaariyay Xamaas. war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay si dhaqsiyo leh amba si dhow ula xiriiraan madaxda sare ee ururka Xamaas ee howlgallada baaxadda laga fuliyay dhulka Yuhuuddu ay deegaamaysatay amba gumaystaha Israa'iil. cashirka loo dhigay kaasi oo ah mid aad u ballaaran, run ahaantii waxa uu ahaa duulaan aysan marnaba filanaynin inuu noocan oo kala dhici karo, balse taasi waxay bannaanka keenaysaa awoodda Alle iyo jiritaanka Allaha weyn ee og sida uu caalamkan u maamuli doono. Isaga ayay wax walba gacantiisa ku jiraan, isaga ayaana go'aamiya. dagaaladii waaweynaa ee Yuhuudda ay la geli jireen Carabtu, Yuhuudda ayaa faa'iido ku qabtay oo mar walba ku qacan sarreysay, waxayna mar walba gaadhi jirtay guulo waaweyn oo ay ka mid tahay inay xataa dhul fara badan qabsato sida buuraha Golan Heights iyo sidoo kale saxaraha loo yaqaano Sinai. haddii aan jaleecno dhibaatooyinka haatan dhacay iyo sidoo kale khasaaraha la gaadhsiiyey Yuhuudda, in ka badan 700 oo dhimasho oo Yuhuudda iyo kumanaan ayaa la soo warinayaa sida ay warbaahinta ku sugan halkaasi soo tabinayso. sidoo kale Yuhuuddu waxa iyaduna ay samaysay duulaan dhinaca cirka ah oo ay ku burburinayso dhul fara badan amba markaasi magaalada Gaza, halkaas oo ay duqeymo xoog laga geysatay oo ay aad u burburisay. waxay jartay korontada iyo biyaha, waxa ay ku burburisay gantaalaha ay diyaaradaha ka dhaca. dagaalku waa mid weli sii socda oo aan la garanayn goorta uu istaagi doono, waxaana bilaabantay taageeradii buuxday ee reer galbeedku la garab istaagi jireen Yuhuudda mar walba.